inta la og yahay 4 ruux ayaa ku dhimatay 2 qarax iyo israsaaseyn laga maqlayay gudaha hotel Dusit oo ku yaala magaalada Nairobi. qaraxyada kadib waxa la maqlayay dhawaaqa rasaasta iyadoo ciidamada ammaanka ee dalkani Kenya ay gaareen goobta uu weerarku ka dhacay oo ah dhismo ay ku yaaleen hotel iyo xafiisyo. dhowr baabuur oo gubanaya ayaa la arkayay iyadoo sidoo kalena goobta uu weerarku ka dhacay laga soo saaray dad dhaawaca. taliyaha ciidamada booliska dalkani Kenya Joseph Ponet ayaa sheegay inay xireen hareeraha deegaanka Riverside iyagoo markaasi ciidamada baaraya weerarkan cidii soo qaaday isla markaana soo badbaadinaya dadka ku jira dhismaha. waxa uu sidoo kale sheegay in weerarkan ay tuhmayaan in uu yahay fal burcadnimo ah. taliyaha ciidamada booliska ayaa sidoo kale sheegay in dambiilayaasha hubeysan ay wali ku jiraan gudaha dhismaha. taliyaha ciidamada booliska ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in qaar ka mid ah dambiilayaasha hubeysan ay wali ku jiraan gudaha dhismaha isla markaana ciidamada ay isku dayayaan inay soo badbaadiyaan dadka ku jira gudaha dhismaha uu weerarku ka dhacay. dhanka kale kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkan sida ay ku sheegeen qoraal ay soo dhigeen warbaahinta iyagu taageerta. sidii aad warkaba ku maqlayseen ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar lagu qaaday hotel ku yaala xaafadda Westland ee galbeedka magaalada Nairobi. weerarkaasi oo al-shabaab ayaa wuxuu ku soo beegmay sanadkii 3aad ee ka soo wareegay weerarkii ay al-shabaab ku qaadeen saldhigga Ceel Cadde ee gobolka Gado oo ay ku dileen ilaa 140 ka tirsan ciidamada dalka Kenya. Haroon Macruuf ayaa goor dhaweeyto khadka telefoonka ee magaalada Nairobi kula xiriiray Duraan Faarax oo ahaa madaxii hore ee guddiga Olombikada Soomaaliya kana mid ahaa wafdi ka socday Galmudug oo meel ka mid ah dhismaha la weeraray kula kulmayay isla markaana ay shir kula lahaayeen mid ka mid ah hay'adaha gargaarka. meesha hotel yiraahdo waxaan joognay meel ku dhagan Dusit ama D2 markaan meesha tagnay qolyaha si kula leenahay markaan meesha galnaa oo meesha taagna waxa ka dhacay qarax aad weyn maalbaad goor ka dhacay. waa gartay ka bacdina maxaa dhacay? xabado badan baa dhacay meesha xabadaha ka dhacay marka anaga meeshaan galnay xafiiska intaan galin dadkii oo dhan baa yaacay meesha waa meel aad u weyn oo company aad u weyn weeye. waa gartay oo xafiisyo waxa la yiraahdaa fara badan iyo hay'ado badan ay degan yihiin iyo hotelkaas. waa gartay marka dadkii badan oo yaacayo markaan aragnay anagana dadka hore u baxayo banaanka u soo baxay dhinaca dambaan ka baxnay. waa gartay marka xabado aad u badan baa dhacay maxaa la yiraahdaa runtii waxay ahayd arrin aad u cabsi lahayd. alxamdulillah ilaahay anaga waxaan uma gaarsiin laakiinse qarax aad u dhaca weyn iyo xabado aad u badan ka dhacay meesha siday tahay dadka population u tahay dadka loo joogo waxaan isleenahay casualty badan oo ka jiro. hadda markaan wareysanayna waxaa leeyahay weli meesha waa lagu jiraa. waa gartay qaraxu markuu dhacay hotelka gudihiisa maad ku jirtay mise banaankiisa? gudahaan joogna hotelka gudihiisa kumaana jirin. hotelka meesha waa compound weyn hotelka xafiisyo ku dhegan ayaan markaas galayn. waa gartay ma aragteen baabuurka qarxay iyo dadka weerarka geysanayay? maya baabuurka qarxay maanaan arkin. maxaa dhacay checkpointigu waa markaas adiga dhowr daqiiqo ka hor baan soo dhaafnay. checkpointigu hore ku qarxay baabuurku. waa gartay meeshana waa building fara badan dad fara badan ay joogaan marka runtii anaga xabadaha dhacay darbiyada agteeda ay ku dhacayeen waa u jeednaa laakiinse cidda ridaysa soo dhacayeen maanaan arkayn exactly cidda ridaysa. saacaddu imisadii bay ahayd xilliga aad ku qiyaasi lahayd? saddexdii barkii waa 3 Africa Nairobi time 3 barkii. waa gartay marka waxaad ii sheegtaa meesha idinku maxaad u joogteen? meesha anaga waxaan la jiray shir baan u nimid xafiis hay'ad la yiraahdo SSF ayaan ugu nimid inaan la shirno. waqtigaas ahayd. idinkuna halkeed ka socoteen? madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelaxaaf meeshaas hay'adaas la shiraayay. waa gartay waxaad ii sheegtaa marka markuu qarax u dhacay kabacdi aad halkeed tallaabadii ku xigteed qaadeen maxay ahayd? dadku maxay idiin sheegeen? dareenka dadku sidee buu ahaa? dadka dareenkiisa waa dareen runtii wada shoogsan buu ahaa. dadku waa dareemi kartaa bombo iyo dhacay iyo xabad dhacaya dad kaboodii ka cararaya dharkooda ka isku tumanayo korka isaga durdurinayo talanjarooyin haba laga daadanayo. waxay ahayd arrin aad mukiif oo cabsi ay ahayd. marka laakiinse alxamdulilah inagu waxaan isleenahay kolba waa maqli jirna oo arki jirna qaraxyasan oo kale ah. marka in meeshii ugu muhiimsan laga bixi karo qayb dambe alleyway dambe oo building dhinaciisa dambe ku jira ayaan ka baxnay. marka laami kaloo weyn oo Riverside Road
ayaan dhinac kale u goynay markaas kabacdi ayaan taxi meesha ka qaadanay. marka idinku hoteelka ma idinaan deganeyn, xafiisyada un baad u socoteen? hoteelka maan deganeyn, xafiisyada u nimid. waa gartay. intee in laeg bay idin jireen meesha qaraxu ka dhacay iyo rasaas ay ka dhacaysa? qarax oo meeshu ka dhacay waa meeshaan ku jirno, waa soo dhaafnay annagu markaasaan waan soo dhaafnay. kaas wuxuu Duraan Faarax oo ka tirsan maamulka Galmudug oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi meel aan ka fogeyn dhismaha weerarku ka dhacay ugu waramayay khadka telefoonka Haruun Macruuf. goordhaweyd ayaa isaguna wariyaheena jaamaca buule jaamaca weerarkaas waxa uu ka wareystay wariyaheena magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. jaamac 3 galabnimo iyo xoogaa galabta markii ay ahayd xilliga saacadda magaalada Nairobi ayaa kooxo hubaysan oo qaraxyo iyo hubkan doondooriga u dhaca ku hubaysan waxa ay si xoog ah ku galeen hoteelka lagu magacaabo Dusit ama D2 loo soo gaabiyo oo ku yaala degmada Westland ee bartamaha magaalada Nairobi. kooxdan oo ay booliska ku sheegeen in tiro ahaan ay gaarayaan ilaa 4 ruux waxa ay ilaaladii hoteelka ay ku khasbeen inay si xoog ah ay u furaan hoteelka iyagoo rasaas ooda uga qaaday. intaas kadib gudaha ayay u galeen hoteelka kooxdan hubaysan. wararkii ugu dambeeyay jaamacow hoteelka iyo agaarkiisa aan ka helayo ilaa iyo hadda waxaa socota dadkii laga soo badbaadinayo hoteelka. ciidamo tiro badan oo isugu jira boolis iyo kuwa sida gaarka u tababaran iyo kooxaha gurmadka iyo wariyaasha ayaa ku sugan goobta uu falku ama weerarka ka dhacay galabta. marka khasaaraha weli ma cadda. warbaahinta gudaha waxay tabinayaan inay jiraan tiro dhowr qof oo ku dhaawacmay rasaastii ay furayeen kooxaha hubaysan. waaya qadar khasaaraha waan u imaanaynaa, bal marka hore waxaad tilmaan naga siisaa hoteelku waa hotel caynkee ah, yaase degan? ma mid dadka oo dhan ay degaanba, ma mid ay Soomaalidu degtaa? bal tusaale hoteelka faahfaahin naga sii isaga. Dusit Hotel waa hotel weyn oo qof kasta uu degi karo, waa hotel ganacsi. dadka oo dhan ayaa dega. waxaa sidoo kale xusid mudan inay ku yaalaan xafiisyo ay ku howlgalaan dadyow kala duwan. marka waa hotel weyn oo la dego oo bartamaha magaalada ku yaala, oo dadkan hay-adaha iyo siyaasiyiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee doonaya inay deegaansadaan caadi ayay u degaan hoteelka. marka ma jirin dad gaar ah ama qolo gaar ah inay degto amaba Soomaalida oo kaleeto dabcan way tagaan oo dadka hoteelada degaya amaba ku caweynaya ama sheekada iyo kulamada ku qaadanaya ayay kamid yihiin. marka laakiin hoteelku waa hotel guud oo dadku ay wada degaan. marka maxaa laga ogyahay weerarka khasaarihii uu geystay dadka shaqaalaha iyo rayidkii deganaa intaba? booliska weli wax war ah kama uusan soo saarin oo ku saabsan khasaaraha iyo tafaasiil guud oo ku saabsan xogta ay ilaa hadda ay ka helayaan qaabka ay wax ku soconayaan. afhayeenka booliska dowladda Kenya Joseph Boynet oo goordhow hadlay waxa uu sheegay in ay weli socoto badbaadinta dadkii laga soo samati bixinaya hoteelka. sidoo kale waxa uu ku baaqay deganaansho. waxaa muuqato in ay booliska iyo ciidamada iyo dowladdu ay aad uga baaraan degayaan maadaama hoteelku uu yahay hotel bartamaha magaalada ku yaala oo hoteelo iyo xaafado iyo meelo badan oo dad badan ay ku nool yihiin uu u dhow yahay. diyaaradaha booliska ee helicopterska loo yaqaanay qumaatiga u kaca ayaa dul hayaabaya hoteelka. wararka aan ka helaya goobta waxay sheegayaan in ay jiraan khasaaro dhaawac oo soo gaaray dadkii hoteelka ku sugnaa oo laga soo samata bixiyey cisbitaalka Kenyatta, Aga Khan iyo cisbitaalo kale oo dhowra. waxaa la geeyey dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi. ma jirto weli wax dhimasho ah oo la sheegay maadaama weli laga shaki qabo in nimankii hubaysnaa ay hoteelka gudaha weli ku jiraan, ayna suuragal tahay in dad kale oo hoteelka ku jiray ay halkaasi waxyaabo kala duwan ay ka dhalan karaan ama dhaawac ama dhimasho. laakiin weli ma cadda khasaaraha guud dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarka. weli xaaladan way taagan tahay. ciidamadu hoteelku way ku hareereysan yihiin.
xaalad kacsanaana ayaa weli ka jirta nawaaxiga Dusit Hotel ee Nairobi. kaas wuxuu ahaa wariyaha VOA Nairobi Khadar Maxamuud Xareed oo khadka telefoonka ugu warramay Jaamac Abuule Jaamac. haddaba taliyaha ciidamada booliiska ee dalkaasi Kenya Joseph Bonnet ayaa goordhaweed waxa uu ka hadlay weerarkaasi ka dhacay magaalada Nairobi waxaana uu yiri Security and Emergency Services responded quickly to the incident and we immediately cordoned off the area and the situation is being managed. lamaanaha amniga iyo xaaladaha degdega ayaa si degdeg ah uga jawaabay dhacdada waxaana durbadiiba aan xirnay goobta waana maaraynay xaaladda waxaana dad badan aan ka soo daadguraynay dhismaha howlgalkana weli waa u socdaa. We wish to offer our prayers to those who are affected and we wish quick recovery to those who are injured. We are aware that there still could be some armed criminals still holed up in the building and our special forces are, as I said, engaged in that operation to flush them out. We wish to also regret that there could have been some injuries in the attack, and we are in the process of confirming the nature and the types of injuries. As you very well know, that we have been vigilant throughout the entire festive period. That is on the part of we in the security sector as well as the Kenyan people, in which we have had a very good festive period. And as part of the enhanced vigilance, all our critical national infrastructure as well as battle installations remain on guard. We wish at this stage to urge the public to remain calm and to cooperate with the instructions given by security agencies, because we are looking forward to bringing this situation to normalcy within the shortest time possible. I thank you, ladies and gentlemen, and I wish to inform that we will continue updating you as we get regular updates. Thank you very much for coming. Later, please, if you don't mind. Later. haddaba waxaa khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa si toos ah ugu jira Rashiid Cabdi oo madax ka xafiiska hay'adda xasaradaha caalamiga ah ka faalootay ee ICG. Rashiid ma maqlaysaa? waan ku maqlaa. waan gartay Rashiid, sideed u aragtaa weerarkaasi ka dhacay magaalada Nairobi ee lala sheegay in lala beegsaday hotel ku yaala galbeedka magaalada ama xaafadda Westland? weerarkaynta wuxuu eegyahay weerar ay kooxda al-shabaab ay qorshaysay. haddaad eegtid waa un waxay ila muuqataa in ay tahay dhibaatadii ka dhici jirtay Soomaaliya iyo Westgate oo hadda waan gartay. Rashiid ma maqlaysaa? waanu ka xunnahay dhegeystayaal khadka telefoonka oo aad u liita daraadeed si fiican oo maqli kara Rashiid ama waa telefoonka ayaa ka go'ay. kaasina wuxuu ahaa Rashiid Cabdi madaxa xafiiska hay'adda xasaradaha caalamka ka faalootay ee ICG loo yaqaano